ciidamada beesha ciise oo saakay weerar ku qaaday gaadiid hub u waday beesha Gadabursi gudaha magaalada Saylac hadaba sidee wax u dhaceen xaaladda guud waa sidee saakay xogo dheeraad ah ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale waxa daawan doontaan ciidamo gurmada oo tiro badan oo ka soo baxay magaalada Boorama iyo ugaaska beesha Gadabursi oo amar bixiyay qodobada kale aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya shacabkii ugu badnaa Israa'iil oo gudaha u galay magaalada Hargeysa iyo dabaaldegiyo wali ka socda gudaha magaaladaasi xogaha kale aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dawladda Djibouti oo si rasmi ah cunaqabateyn ugu soo rogtay Somaliland sheegtayna inay ilaalinayso midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed qodobada kale aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ugaaska guud ee beesha ciise oo maanta kulamo xasaasi ah leh saraakiisha beeshaasi kaasi oo looga arinsanaya xaaladda guud ee magaalada Saylac qodobadaas ayaa daawan doontaan haday tahay markaagii kugu horeysay oo aad halkan soo booqato waxaan ka codsanayaa marka hore in channelkan aad ku soo biirto subscribe-na dhahdo si aad u hesho wararka degdega aynu halkan soo gelino aynu ka horeynay ciidamada beesha ciise ayaa saakay weerar ku qaaday gaadiid hub u waday beesha Gadabursi oo marayay banaanka magaalada Saylac waxaa la soo sheegayaa in markii ay heleen xogta ciidamada beesha ciise durbaba ay ku baxeen gaadiidkan oo gaaraya ilaa iyo 3 gaari oo la sheegay inay hub ka soo qaadeen magaalada Boorama isla markaana ay hub u wadeen ciidamo ka tirsan beesha Gadabursi oo saldhigyo ku leh gudaha magaalada Saylac dagaal kooban oo goobta ka dhacay ayaana waxa u suurta gashay ciidamada beesha ciise inay la wareegaan hubkaasi isla markaana ay ka faramuroojiyaan ciidamadii beesha Gadabursi ee galbinaya hubkaasi waxa la sheegay in ilaa 4 xubnood oo u dhashay beesha Gadabursi oo qayb ka ah ciidamadii galbinaya hubkaasi inay gacanta ku dhigeen iyo sidoo kale gaadiidkii hubka waday oo gabi ahaanba 3 gaari oo midkood hubka uu saarnaa labada kalena ay galbinayeen ay 3 gaari ba ay goobta kula wareegeen dhaqdhaqaaqyaad u xoogan oo looga falcelinayo falkii ay qsamaysay beesha ciise isla markaana ay kula wareegtay hub ay leedahay beesha Gadabursi ayaana si weyn looga dareemayaa saakay gudaha magaalada Saylac weerarkan oo dhacay 5tii subaxnimo ee saakay hore ayaana la soo sheegayaa in la qorsheeyay isla markaana beesha ciise ay la sii socotay gaadiidkan hubka u sida ee ku soo wajahnaa saldhig ay beesha Gadabursi ay ku leedahay gudaha magaalada Saylac ugaaska guud ee beeshaasi ayaana la sheegay in si weyn uu kaga carooday arintan isla markaana kulamaan caadi ahayn ay saakay durbaba ka bilowdeen gudaha magaalada Boorama iyadoo halkaas ay ka soo dhaqaaqeen ciidamo tiro beel ah kuwaas oo la sheegay in ujeedkooda uu yahay inay gudaha u soo galaan magaalada Saylac si ay kaga falceliyaan tilaabadii ay qaaday beesha ciise isla markaana ay kula wareegtay saanad hub ay leedahay beeshaasi beesha ciise ayaana waxay sheegtay in tilaabooyin dhowr ah oo ka adag tilaabooyinka ay qaaday ay sii qaadi doonto isla markaana arimahan ay kaga gol leedahay sidii lagu xakameyn lahaa awoodda xilligan beesha Gadabursi ee gudaha magaalada Saylac oo xilligan ay ku awood leedahay beesha ciise isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo tiro beel oo u dhashay beesha ciise isla markaana isaga kala yimid dalka Djibouti iyo sidoo kale Somaliland xiriirka Djibouti iyo Somaliland ayaana sii xumaanaya iyadoo Somaliland xilligan ay qarka u saaran tahay in si toos ay u taageerto beesha Gadabursi maadaama xiriirkii kala dhaxeeyay Djibouti uu sii xumaaday kadib markii Somaliland ay heshay ictiraafka isla markaana Djibouti xilligan ay bilowday inay joojiso warqadaha aqoonsiga ee Somaliland ee gudaha Djibouti ay kula gali jireen muwaadiniinta Somaliland taasoo ay gabi ahaanba Djibouti diiday isla markaana ay sheegtay in qofka Somaliland ee soo galay gudaha dalka Djibouti laga doonayo inuu haysto baasaboor ama warqad aqoonsi oo uu ku sito dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo culays aad u xoogan ku keentay shacabka Somaliland isla markaana Djibouti ay diiday aqoonsigii dhawaan Somaliland ay ka heshay Israa'iil qodobada kale hadaynu eegnaa ciidamo gurmada oo tiro badan ayaa ka soo baxay magaalada Boorama iyadoo ugaaska guud ee beesha Gadabursi uu amar soo siiyay ciidamadan isla markaana si weyn uu kaga carooday falkii ka dhacay gudaha magaalada Saylac isla markaana beesha ciise ay kula wareegtay gaari ay ka buuxeen hub
iyo ciidamo galbinaya qaarkoodna ay baxsadeen qaarna gacanta lagu dhigay iyo 3 gaari oo 2 kamid ay galbinayeen mid kamidna uu hub saarnaa waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay mid foolxumo ah isla markaana beesha Gadabursi la doonayo in arintan si weyn ay kaga falceliso isla markaana ay u midowdo sidii arintan fallamida ay kaga geysan lahayd gudaha magaalada Saylac ciidamo gaaraya ilaa 500 oo askari ayaana la soo sheegaya inay xilligan ka soo jeesteen magaalada Boorama isla markaana safarkoodu uu yahay inay soo gaaraan magaalada Saylac iyadoo la sheegay inay yihiin ciidamo si gaar ah u tababaran isla markaana qayb ay ka yihiin qaarkood askar ka tirsan ciidamada Somaliland dhaqdhaqaaqaad xoogan ayaa si weyn looga dareemayaa saakay oo khamiis ah gudaha magaalada Saylac ay wadaan ciidamada beesha Ciise oo sheegaya inay diyaar u yihiin duulaan walbo xilligan kaga yimaada beesha Gadabursi isla markaana si wada jir ay isaga difaaci doonaan dagaal xilligan ay ku soo qaadaan beesha Ciise oo ay sheegeen in beesha xilligan ay u diyaarsan tahay awood ahaan inay ka falceliso tilaabo walbo ay soo qaadaan ciidamada beesha Gadabursi ee ku sugan gudaha magaalada Saylac qodobada kale hadaynu eegnana shacabkii ugu badnaa Israa'iil ayaa gudaha u galay magaalada Hargeysa kuwaas oo qayb ka noqday dabaaldegyada ka socda magaalada Hargeysa kadib markii ay aqoonsi ka heleen dawladda Israa'iil xubno warbaahinta Israa'iil ka tirsan oo wariyaal ayaana ka soo muuqday muuqaalo dad shacab oo dabaaldegaya isla markaana wata calamada Israa'iil sheegayna in ay aad ugu faraxsan yihiin in gudaha magaalada Hargeysa ay soo gaaraan xubno ka socda dawladda Israa'iil isla markaana tabinaya xogta iyo waxa ka jira gudaha magaalada Hargeysa ayaana maalmihii aynu ka soo gudubnay tan iyo markii jimcihii lagu dhawaaqay aqoonsiga Israa'iil si weyn waxa halkaas uga socday dibadbaxyo loogu taageerayo aqoonsigaasi isla markaana shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa berbera iyo magaalooyin kale ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin aqoonsiga xilligan heshay Somaliland iyadoo shacabka koonfurta gaar ahaan magaalooyin dhowr ah oo ay qayb ka tahay Muqdisho Dhuusamareeb Baydhabo Guriceel iyo magaalooyin kale oo ay qayb ka tahay Laascaanood oo kol hore ay ka arimin jirtay Somaliland ayaana waxa ka dhacay kulamo iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland isla markaana waxa lagu sheegay aqoonsigaasi inuu yahay mid aan suurtagelaynin isla markaana culays ku keeni kara shacabka ku dhaqan magaalooyinka Somaliland isla markaana xilligan aysan suurtagal ahayn in Israa'iil ay aqoonsato Somaliland oo ah qayb kamid ah dhulka Soomaaliya taasi oo la sheegay in culaysyo kala duwan ay kala kulmi karto haddii aysan ka tanaasulin madaxweyne Cerro ayaana muuqaal video call ah oo uu la wadaagay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil waxa uu sheegay in si rasmi ah uu aqoonsaday Somaliland isla markaana wixii haatan ka dambeeya dal ahaan uu kula tacaamuli doono qodobada kale hadaynu eegnana dawladda Jabuuti ayaa si rasmi ah cunaqabateyn uga soo rogtay shacabka Somaliland sheegtayna inay ilaalinayso midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed tan iyo markii ay soo baxday aqoonsiga Somaliland dawladda Jabuuti ayaana si cad mowqifkeeda u cadeysay isla markaana ay ku sheegtay inay diyaar u tahay inay taageerto shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed isla markaana aysan qayb ka noqon kala goynta iyo kala taga shacabka Soomaaliyeed waxayna gebi ahaan badiiday warqadihii aqoonsiga ee Somaliland ay gudaha ugu gali jireen gudaha dalka Jabuuti iyadoo sheegtay in gebi ahaan baan la aqbali karin waxayna sidoo kale ka xaratay xuduudda Somaliland iyadoo sheegtay inaysan marnaba raali ka noqon doonin shacab ka socda iyo mas'uuliyiin ka socda Somaliland inay gudaha u soo galaan dalkeeda taasoo ay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin dawladda Jabuuti ayaana waxay sidoo kale sheegtay inay taageersan tahay wax walba oo xilligan keeni kara midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed ayna diyaar u tahay inay ka shaqeyso arintaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dhawaan tagay gudaha dalka Jabuuti isagoo kulan aan caadi ahayn la qaatay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle oo loo badinayay inay ka wada hadleen arinta aqoonsiga Somaliland
iyadoo labada dhinac la soo sheegayo inay isku raaceen sidii loo dhisi lahaa maamulka Awdal State isla markaana xilligan wada hadal loogu furi lahaa beelaha Ciise iyo Gadabursi si loo xaliyo khilaafka xilligan taagan isla markaana labada beelood lagu qanciyo inay dhistaan maamulka Awdal State oo ka madax banaan Somaliland xilli arintaas culays aad u xoogan ay ku keeni karto aqoonsiga ay xilligan heshay Somaliland maadaama qaybo badan oo kamid ah dhulkeeda xilligan lagu muransan yahay qaybna maamulka waqooyi bari laga dhisay qaybta kalena haatan dood aad u xoogan ay ka taagan tahay guud ahaan daawadayaal warkii asaakay ka daawanaysay Kacaan Media wanaga inta ilaa iyo dhamaadka muuqaalka hadii aad nala soo gaartay waxaan ka codsanayaa mar kale in channelkan aad ku soo biirto subscribe na dhahdo si aad u hesho wararka degdega aynu halkan soo gelino